kusoo dhawaada waa mar kale iyo casharadan excelka maanta waxaan ku fiirinaynaa casharkan relative referencega wax la yiraahdo. Horta by default seelashan oo maaragtay excel oo dhan waa relative, laakiin maaragtay absolute referencega oo wax maaragtay lagu logaro lagu xiro. Marka relative referencega waxaa laga yaabaa inaad isticmaashid laakiin magaca aadan u garanayn. Relative referencegu waxa relative loo yiri waxa waaye meesha ay ku jirto formulada ay ku jirto iyo meesha ay ka soo jiidanayso ay ka soo maaragtay collect garaynayso daarada waxa ka dhaxeeya direct relationship ka dhaxeeya. Marka intaas waa waxa loo yiri relative reference. Markii aan demonstration sameynana waa arki doontaan. Marka haddaan equals haddaan dhaho under this cell plus this one plus xisaabta halkan ku jirta plus xisaabta halkan ku jirta inta la xisaaba markaan dhaho oo aan enter dhaho waxaan helay store totalka meeshaan Royal Minnesota store inta waa individual store numbers store number 1 waxaan helay totalkiisa. Markaan double click gareey marka waa aragtaa halka hadda fiirisid formula barkana waa aragtaa informationka la isku daray inay halkan ka imaanayaan waa B7 C7 D7 and E7. Marka haddaan koobiyey marka formulada halkan aan ku dhisay haddii aan koobiyey okay maxaa dhacaya? Okay waxaa noo soo baxay xisaab kale, xisaab totalkan kale noo soo baxay marka xaguu ka imaanaya double click garee marka waa aragtaa haddana kuwaana waa relate gareeyaan B8 C8 D8 marka relative reference relationshipka noocaasa ka dhaxeeya characteristic ahaanna waxa waaye waa dynamic, it changes. Marka haddii aad ku biisid it moves down and it looks maaragtay next to the maaragtay formulada halkaas ka soo qaadataa marka ay ka soo qaadanaysaa nambarada ay calculate garaynayso. Okay waxaan marka haddii aan halkan saas intaan double click gareeyo waxaa arkaysaa storadii oo dhan individual totalkoodii sumkoodii already igu jira fahamtay. Halkaas waa kuwaasa marka random mid iska soo qaado las kan aan bigaraysano aan fiirino waa aragnaa marka meeshaan formuladan la dhisay waa relative reference waxa weeye halkaan ka soo collect garaysanaysaa xisaabta ay isku dardarayso. Marka I hope inaa fahantay macnihii qeexidda relative reference. Badanaa waxaa laga yaabaa inaad isticmaashay xataa waxaa laga yaabaa inaad tiraahid there are other ways aan maaragtay u calculate garaysan karo sumka. Marka what's this relative reference oo laga hadlayo? Marka relative referencega laga hadlayo waa inaa ogaatid behaviorka sida ay wax kugu socdaan. Waayo hadhowti markii formula ka garaysid oo ay maaragtay qalad oo mistake u dhaco waxaa arki kartaa marka maxaa meesha uu mistake ka imaanayo oo relative reference ya rabtay kan kuwana inay halkan sum ku noqdaan rabto kuwana sum inay ku noqdaan inay isku dhex darsoomaan maadan rabin. Marka haddii wax qaldamaan waxaa leedahay okay maxaa jira marka relative reference waa kaasa waxaan filayaa inaa fahantay relative reference inuu wuxuu yahay. Next clipna waxaan isugu imaanaynaa absolute reference oo aan sharaxi doono. Absolute referencega characteristic uu kaga duwan yahay waxa waaye waa constant waaye asaga isma bedelo meesha ay relative-ka uu ka yahay dynamic uu ka yahay. Marka kaasna waa sharaxaynaa waa arkaynaa. I hope inaa wax ka faa'iiday inaa isticmaashid inaana taqaanid waxa relative reference uu yahay. Haddii lagu weydiiyo khayr aan isku ognahay clipka dambe inoo ballan hadduu ilaahay idmo nabadey.